journalka International Christian Crisis ay soo saareen ayaa waxaan ii muuqatay in dalka Soomaaliya lisdhax fadhiyo oo qolo walba ay ku jirto dalkan shaqana laga hayo. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaan qiyaarta soo dhawaada waa mar kale barnaamij kale iyo Kista TV waa maalin axada 1 bisha June 2025 barnaamijkeenan maanta insha Allah taala waxaan ku qaadaa dhigi doonaa arrin ka soo korodhay dalkeennii hooyo gaar ahaan wax aadan filanayn oo ku saabsan arrimaha diinta ama diimaha. waxaan insha Allah taala ku eegi doonaa warbixintan dad ay la sheegay in ay ku nool yihiin dalka Soomaaliya oo iyagu waa hore diinta islaamka isaga baxay. arrinkan wuxuu naga soo gaaray hay'ad ku taala wadankan Mareykanka ee Washington DC taas oo sheegtay in Soomaaliya ay ku nool yihiin 1500 oo qof ugu yaraan numberkuna uu sii kordhayo oo sanadkii 2024 mar ay booqasho ku tageen magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku soo arkeen dadkaas. waxa ay ku sheegeen qoraalkooda in ay ayagu yihiin qolyaha lacagta ku bixiya dhaqaalahana ku bixiya in ay badbaadiyaan dadka diinta masiixiga haysta ee ku nool meelaha aan laga ogoleen in diintaas laga practice gareeyo ama looga dhaqmo. waxay sheegeen in aan loo ogoleen Soomaaliya inay ka dhistaan kaniisado. waxa loo sheegeen in Soomaaliya aan loo ogoleen in ay waxyaabo badan oo meelaha kale uga hirgala aysan uga hirgeli karin. xaaladda Soomaaliyana ay tahay xaalad adag laakiin bay yiraahdeen inay shaqadooda ka dhax wataan bay sheegeen. waxaan rabaa insha Allah taala sida ay u qoreen journalka annaga oo ka soo dab qaadanayna in aan idinka sheego hal iyo labo arrimaha ay sida ay uga warameen. waxay yiraahdeen waxa 2024 mar aan booqasho ku tagnay caasimadda Soomaaliya waxaan la soo kulanay bay yiraahdeen 1500 oo qof oo diinta islaamka ka soo baxay galayna diinta masiixiga. dadkan ayaa waxay sheegeen in ay la kulmaan cadaadis ka soo gaara bulshadii iyo community-gii ay ku dhex noolaayeen sidoo kalena cabsi weyn ay ka soo wajahdo dadka familkooda ah. marka waxay yiraahdeen waxaan u sameynay guryo ay degaan dadkaas waxana ay ugu talagaleen guryahaas mid kamid ah waxaan ku soo aragnay bay yiraahdeen 20 qof oo ku nool hal guriyaasna waxa kirada iyo wax walba ka bixiya inay iyaga yihiin ayay sheegeen. waxaana ay sheegeen in ay rabaan inay u fududeeyaan dadkaas diinta ka soo baxay in ay haystaan meel ay ka heli karaan cunto guri iyo arrimahooda diimeedna ay ku samaysan karaan maadaama ay kaniisado iyo waxaas aan dalka laga ogoleen. waxa kale oo ay sheegeen in ay jirto waqooyiga dalka Soomaaliya haweeney kalkaalisa ah oo isbitaal ka shaqeysa taas oo u isticmaasha accesska ama chance-ka ay u leedahay inay la kulanto dad fara badan maadaama isbitaal ay ka shaqeyso oo kalkaalisana ay tahay in ay diinta gaarsiiso haweenka iyo caruurta inay gaarsiiso oo ay ku faafiso diinta halkaas iyadoo iska jirto baa la yiri luqadda in la fahmeen dhaqaale xumo ay iska jirto iyo cabsi joogta ah bay yiraahdeen. waxa ay halka ka shaqeynaysay haweeneydaas 2 sano ka badan dad fara badanna waa ay gaarsiisay howlaheeda ay wadatay baa la yiri. waxa kale oo ay sheegeen in ay qofka hadii laga shakiyo ama uu dhibaato la kulmo ay iyagu la soo gaaraan wixii dhaqaale ah oo uu u baahan yahay. tusaale waxay u soo qaateen 2023 reer oo odagii beer ay ku lahaayeen shabeellada dhexe oo kale in laga soo qixiyay beertina ay ka gubeen nimankan odayaasha ah. haddaba waxa dhacday in qofkaas waxay sheegeen in $4,000 oo degdeg ah ay la gaareen haddana ay kirada ka bixiyaan. sidoo kale waxay sheegeen in ay dadka Soomaalida ah oo Mombasa iyo meelahan degan in ay ilmaha iskuulka uga bixiyaan kiradana ay ka bixiyaan. dadkaasna ay sheegeen in ay yihiin dad ka soo qaxay Soomaaliya cabsina uga soo qaxay Soomaaliya imaaday Mombasa iyo meeshaasna diintoodii masiixiga ahaa oo ay ku soo biireen wata. marka waxaan rabaa ujeedka hadalkan iyo journalkan aan u soo qaatay
waxa weeye ayaantii dhaweyto tookadii hore ee Donald Trump markii uu sheegay in uu wadamo islaam u badan ayaan waxaan ka soo saaray buu yiri waxaan saarnay cunaqabatayn inay dalkan imaadaan markii Soomaaliya aan ku arkay waxaan maqli jiray weligeen aan ogaa in Soomaaliya la sheego in boqolkiiba boqol dad islaam ah ay tahay laakiin waxaan filayay waxaan ii muuqday in ay jiraan sida aan anigu wax u fakarayay in uusan wax u jirin oo dad kale ay jiraan oo dalkan dhexda kaga jira oo diimo kale ay nagu dhex miran yihiin hadda ayaan si fiican u soo xaqiiqsaday kadib markii ay soo saareen journalka International Christian Crisis ay soo saareen ayaa waxaan ii muuqatay in dalka Soomaaliya lisdhex fadhiyo oo qolo walba ay ku jirto dalkan shaqana laga hayo marka dadka u maleeya in gudaha Soomaaliya aysan dhibaato ka jirin laakiin dhibaatadu ay ku kooban tahay dadka qurbaha jooga kaliya oo badanaan yiraahda waxa nagu soo laaban doona dad fara badan oo diinta laga soo bedelay oo qurbaha ka imaaday waxaan rabaa inaan u sheego in dalka Soomaaliya gudihiisa shaqo ay ka hayaan qolyaha dadka diinta ka bedela marka waxaan rabaa waa wacyigelin videogan ogaansho in bal wixii tabarah in la is ilaaliyo waana wargelin it's just for information iyo wacyigelin ku saabsan waxa ka socda agagaarkaaga in aad la socotid caruurtaada iyo haweenkaaga iyo adigaba inaad iska warqabtiin marka intaas ayaan rabaa inaan ka dabageeyo noo share gareeya videoga insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh